madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah wuxuu maalinimadii shalay ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya markii 6 bishan ay baarlamaanka codka kalsoonida kala laabteen xukuumadii ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed. haddaba shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Dubai ee wadankani isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen magacaawista ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan u diro hambalyo kal iyo laaba xulada la soo xushay ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. ninkaasoon hubo aqoonna u leeyahay sidaan u aqaano aan hubo xilligan xaadirka haddii alla idmo ilaahay la garab galo ummadana uu ka helo gacan insha Allah biidnillaahi alkariim inuu ka samata bixin karo waxyaabo badan isagana waxaan leeyahay xilkaas waa xil aad iyo aad culus ilaahay ku fududeeyo runtii aad baan u hambalyeynaa una soo dhaweynaynaa magacaabista ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. hadee waxaan isleenahay aabihiis taariikh wuxuu ku leeyahay caan ah oo la garan karo ummadda Soomaaliyeed. waxaa lagu jiraa marxalad kala guur ah. waxaan rajaynaynaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa waliba koonfurta looga maamaaha madaxii duubis yaqaan baa la duubaa. waxaan ka rajaynaynaa doorkii Allah u naxariistay madaxweynaha hore Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake runtii faamil aad iyo aad u fac weyn oo taariikh weyn oo Soomaaliya abaal badan ku leh. waxaan ka rajaynaynaa haddii rabbiga idmahayo inaad hawshaas sayta aad uga soo dhalaashid waana rajaynaynaa inaad ka soo dhalaalayso haddii alla idmo. waxaan u hambalyeynaa ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtoba waxaan leeyahay hambalyo ra'iisul wasaare cusub yaa inoo dhashay muxuu ahaa weyn lala shaqeeyo oo khibrad u leh ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed. magacayga waxaa la yiraahdaa Caaqil Burhaan Cusmaan waxaan ahay caaqilka beelaha Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynayaa magacaabista ra'iisul wasaaraha. waxaan filaynaa inuu noqdo hawsha loo idmaday nin guta. waxaan ku darayaa maamaha xilligii Talyaanigii madax Ingiriiskii baa waxa la yiri wardheer nin ciidan cayaarsiinaya wuxuu ku keenay ceel marka wuxuu garan waayay wuxuu ku yiraahdo Ingiriiska uga leexda ceelka ka leexda wuxuu yiri baando aqligiina waa qabtaan ceelka idinka horeeyana waa Chiiliya. waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intii jeero la soo kufay iyo intii la isqabsaday waad garanaysaan inay noqoto arrin cibra ah oo dariiqii hore lagaga leexdo dadka iyo dalka idinmaday inaad wax u qabataan aad ka samata bixisaan waqtiga uu ku jiro adag. waxaan u hambalyeeyaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii hogaamin fiican oo Soomaali ku dayato keena dawladdiisuna ay noqoto dawladda Soomaaliya oo horseeda horumarka iyo baraaraha. waa tahay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxay si aad u soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Dubai.